imtixaanka markaa kusoo guulaysato waxaad helaysaa foorkood class B kadibna su-aasha haddaadan fahmin si kastoo imtixaankaas aad usoo diyaar garowday way adkaanaysaa inaad ka jawaabtid ama jawaab sax ah aad dhibto waxaa laga yaabaa markiiba inaad iska dhaadhiciso ama niyadda ay kuu gasho marba haddaa laysinkii qaadatay khalas wax kuu dhiman ma laha cagtaada fur tusaale السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد وأنا عبد الرحمن آدن هيلي iyo mar labaad إن شاء الله تعالى وراليال sidaan hore idinkugu soo sheegnay barnaamijkan aan hadda idin soo gudbin doono waxa uu kamid yahay barnaamijyadii hore u soo socday iyo kuwa kale oo gadaal ka imaan doona haddii Ilaahay idmo in dhacdooyinkii hore aan hore u soo marnay waxaan ku soo qaada dhignay waxyaabo la xiriiro trafikushka iyo waxyaabaha anaga naga filan ka dhaan iyo visionkeena iyo ujeedka aan ugu talagalnay barnaamijkan inuu u socdo insha Allah taala in barnaamijkan ama qaybtan hadirtan aan idin soo gudbin doono waxay ku saabsan tahay qaybaha kala duwan foorkood class B-ga sidaan soo sheegnay qofka markii uu soo dhameeyo traffic groundkushka uu soo qaato theory uu ku soo baaso oo saacadihii loogu talagalay oo obligatory shoorinka ahaa uu soo dhameeyo kadib waxa uu galayaa imtixaanka markii uu ku soo guuleysto maxaa dhacay marka imtixaanka markaa ku soo guuleysato waxaad helaysaa foorkood class B kadibna waxaad si sharci ah aad u kaxeyn doontaa gawaarida gaariga kaxeyn kartaa marka mar haddaad foorkood class B soo qaadatay gaari kasta ma kaxeyn kartaa waa su'aal runtii u baahan qof walba inuu isweydiiyo gaariga aad kaxeynayso oo laysinkan lagu siiyey muxuu yahay foorkood class B-ga waxaa loogu talagalay qofka inuu ku kaxeeyo gawaarida miisaankooda ama culeyskooda uu yahay ilaa 3500 oo kilogram waxaa kaloo ku kaxeyn kartaa motorcycle ama mootada yar aad ku kaxeyn kartaa waxaad kaloo ku kaxeyn kartaa mootada afarta taayir leh ama mid saddex taayir leh oo kale ayaad ku kaxeyn kartaa laysinka markaa soo qaadato oo aad xor u noqoto inaad gaariga kaxeysato shaqadaada ku aado howlahaaga ku qabsato waxaa laga yaabaa markiiba inaad iska dhaadhiciso ama niyadda ay kuu gasho marba haddaa laysinkii qaadatay khalas wax kuu dhiman ma laha cagtaada fur tusaale laysinkii aad soo qaadatay bil ka hor ba waxaa laga yaabaa inaad la timid ama aad samaysay khalad aad u weyn maxaa dhici kara marka si haddaba aysan kuu seegin ama aadan u gafin darsi kasto ama cashar kasto aan ugu talagalnay inaan usoo gudbino mujtamaca Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankan Norway annagoo ujeedkeenu uu yahay inaan u fududeyno barashada theory-ga oo aan mar walba insha Allah taala idin soo gudbin doono casharo ama darsiyo kala duwan si aad ugu xirnaato kanaalka waxaa muhiim ah oo aan ka codsanaynaa inaad asxaabtaada la wadaagto aadna subscribe garayso si casharada aan kula wadaagi doono aysan ku seegin insha Allah taala waad mahadsantihiin adigoo intaas oo waqti soo geliyay adigoo intaas oo juhdi soo bixiyay adigoo intaas oo qarash leen Norway waxaan ognahay talaabo kasto aad qaadaysid inaad lacag bixisid laysinkan kuma jiro waxa laga yaabaa 30,000 oo koron ama lacag ku dhow inuu ugu kaco qof walba oo rabo inuu laysinka soo qaato sidaas daraadeed waxaa muhiim ah laysinka markaa soo qaadato inaad ogaatid maskaxdana aad ku haysid labada sano ugu horeyso inaad taxadartid haddii labada sano gudahooda inta aad laysinka haysatid aad shuruucdii lagugu talagalay inaad ilaaliso aad jibiso boolisku wuxuu xaq u leeyahay in lagaala noqdo laysinka maadaama labada sano aad ku jirto waxa la yiraahdo provatid marka qof walba waxaa loo baahan yahay oo laysinka haysto 24 kaas bilood gudahooda ah inuu is ilaaliyo meeshii loogu talagalay inaad 60 ku wado hakas inaad ka hoos marto mooyaane ha ka kormarin meeshii loogu talagalay 40 sidoo kale meeshii loogu talagalay 50 sidoo kale traffic light-ka waan u imaan doonaa waxyaabaha soo dhan hadii la haydmo traffic light-ka suu cagaaran yahay waxa uu siinayaa nal jaalla ah waa is ilaali guduud hadduu noqdana ma gudbi kartid meeshii guduud noqoto marka haddaad gudubto waxaa jibinaysaa sharciyadii ugu khatarsanaa mid ka mid ah taasna marka waxay keenaysaa in laysinka laga qaato laysinka haddii laga qaatana waxaa weeyaan waxaa laga yaabaa in ganaaxna uu ku raaco waa maxay ganaaxa waxaa laga yaabaa in lacag lagu ganaaxo waxaa laga yaabaa in sanad ama 2 sano oo kale lagu yiraahdo adigu maba wadi kartid wax gaari ah sababtoo waxaaba tahay qof qayru mas'uul ah naftiisana khatar ku ah bulshadana khatar ku ah marka sidaas daraadeed waxaa loo baahan yahay qofku markuu laysinka soo qaato inuu ka taxadaro inuu haysto
ilan wixii waa heshay laakiin saad ku haysan lahayd inaad xoogga saartana waa muhiim. tusaale ahaan waxaad kaloo awoodaa inaad forecourt kalaspega aad ku isticmaasho tilhanger ama waxa afka Soomaaliga loo yaqaano muxuu ahaa remol. remolku waa kala waaweyn yihiin waana kala yaryar yihiin laakiin mid ilaa 750 kilogram inaad ku xiran kartid gaariga si haddii aad guuraysid oo kale alaabaha aad ugu qaadatid haddii aad qof caawinaysid oo kale aad u isticmaashid. labadooda marka tilhangerka iyo gaariga marka la isku daro waa inaysan ka badnaan 4250 kilogram. 4250 kilogram waa inaysan ka badnaan. haddii ay ka badnaato waxa weeyaan waxaa jibisay sharci ka mid ah shuruucdii loogu talagalay inaad ilaaliso. taana waxaa laga yaabaa haddii lagu qabto wixii hadda aan kasoo hadlaynay inay keento. marka insha allahu tacaala barnaamijkan oo faahfaahsan oo si qoto dheer aan u kala dhigayno dib ayaan idinkala soo socodsiin doonaa insha allahu tacaala. anigoo ah Hiliye waxaan mar labaad idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. إن شاء الله تعالى هذا ثم حنقول قلنا قيبتي سؤالها. سؤالش مركل فيديو إن الجواب صح أديبتو وحيكون حيران تحي إن السؤالش فهمته هرت. سؤالش هذا فهمين سكستو امتحان كاس أوسو ديال جرودي وأكان يسألك جوابتي أما الجواب صح أديبتو. إن سؤال بالفيديو مركل هذا سؤالش كوبات إن شاء الله مركل روح نكون شيء جينا لقدة نرويجية كدمنا إن أفسوماري بانكو فسرية هذه إلى هينمو إنتي أنك أقوله حلو يري فو أوفاره إن دكتي بالفورر إن بارر أدو أري A B C L D A معنى هذا حويان alltid reagerer B känner dig selv har kunskap om bil och trafik och ser bilkörning och samfund i sammanhang. C وحويان hålla fartgränser. Den ugu dambeysana waxa weeyaan alltid klare å stoppe fortere enn andre. intaas waxay ahayd luqadda Norwejiga. marka waxaa lagu weydiiyey inaad noqoto dareewal xirfad leh maxaa lagaaga baahan yahay maxay micnaheeda noqonaysaa. kow waxay noqonaysaa su-aalihii haddeertaan Norwejiga aan kusoo sheegnay ee ahayd inaad si degdeg ah markiiba aad gaariga ku joojiso inaad ama mise waxay noqonaysaa b oo ah inaad xawligii aad ku socoto xawaarihii gaariga ku socdo inaad dhinto oo aad yarayso mise waxay noqonaysaa c oo ah inaad dadka kale baabuurta kale ee ku ag socoto aad adigu ka hor istaajiso ama waxay noqonaysaa at du känner dig selv inaad horta marka hore adiga aad tahay qof ishelay oo isyaqaan oo is-og kadibna aqoon fiican u leh sharciga iyo baabuurta iyo environmentiga ama dadweynaha isaga ku hareeraysan. marka jawaabta saxda ah waa midaan weeyaan oo ah qofka marka hore inuu isaga horto uu iskontarolo uu yahay qof ishelay oo is-og isaga aqoon fiicanna u leh sharciga iyo kaxeynta gaariga kana taxadarayo environmentiga iyo bulshada isaga ku hareeraysan. su-aasha labaad waxaa lagu weydiiyey oo iyadana la xiriirto darsigii koowaad aan soo qaadanay oo ah kan ulovlig overkörning medförer ekonomisk ansvar. waxaad dhihi kartaa ja eller nej eller bare dersom føreren over 18 iyo bare dersom føreren har ikke tatt trafikalt grunnkurs. su-aashan labaad lagu weydiiyey afartaasay noqonaysaa oo ah micnaheeda inaad si sharci dara ah aad gaari ku kaxayso ma caqabad dhaqaale ah ayaad la kulmi kartaa yani ganax ha maya waxay qusaysaa arrinkan oo keliya dadka da-doodu ay ka weyn tahay 18 sano iyo dadka aanan qaadan imtixaankii ama koorsadii trafikalt grunnkurs. marka jawaabta saxda ah waa ha waa yaa weeyaan saddexda kale ma qusayso. insha allahu tacaala su-aalahaas waxay la xiriireen episode 1
hadeertaan waxaan idiin soo gudbin doonaa insha allahu tacaala su-aalihii kale ee la xiriiray episode 2 iyo 3 insha allahu tacaala. وأنا قاهلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.